gabadhii TikTok-ga ku kala kicin jirtay muuqaaladeeda qaawan ee aan asturnayn ee aan wanaagsanayn balse maalmihii dambe ka baxday iskuna beddeshay gabar xijaaban oo qurxan oo aad looga xumaaday talabadii ay qaaday. Maxay tahay sababta uu u sameeyay ninkan oo muuqaaladii gabadhan ay u dirtay horaantii inta ay ku guda jirtay falalka xun oo hadda banaanka u soo dhigay muuqaaladaasi? Ninkaasi oo caan ka ah baraha bulshada waxaan soo gudbin doonaa muuqaaladaasi iyo sidoo kale ninka caanka ah ee adigu aad doonayso inaad ogaato. Balse fadlan like inoo saar muuqaalkan, channelkan ku soo biir oo subscribe inoo dheh. King Cabdinuur aad u mahadsan tahay. Queen Canab waa mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, aad ayaa loo taageeraa, waxaase ku soo baxday qaab aad u xun oo wanaag loogama baran, walow nolosheeda isbeddel weyn ay ku samaysay. Markii muuqaalada ay soo dhigi jirtay baraha bulshadu waxay ku bilowday muuqaalo qurxan inay soo dhigto shactiro oo kale ah, balse markii dambe waxay toos u shaacisay in ay u kala kicinayso iskaabulada. Sidaana waxay ku heshay taageerayaal aad u fara badan. Kama xishoon jirin inay soo dhigto muuqaal qaawan si walba uu ahaadaba oo xumaantiisu wato. Balse asbuucii la soo dhaafay ayaa hanuunkii eebbe ku soo degay, waxaasi oo dhan ayay iska dhaaftay. Waxayna qaadatay xijaab, waxayna qaadatay akhlaaq, waxayna yeelatay oo ay noqotay qof aad u wanaagsan. Intaasi oo wanaagga iyadoo samaysay ayaa haddana waxa ay yeelatay cadow aad u badan, kuwaasi oo ka soo horjeestay gabadhaani isbeddeshay oo nolosheeda ka dhigtay mid iftiimaysa. Waxayna isku beddeshay nolol qurxan, dad badanna ay taageereen, walow ay aad u weysay taageerayaal fara badan, kuwaasi oo muuqaaladooda 100,000 ay ka jirtay loof ahaan marka ay wax soo dhigto. Balse markii ay noqotay qof diinta iyo waxyaabahaasi wanaagsan soo dhigta, waxay noqotay mid taageerayaal aad u badan weysa. Haddaba wiil barta Facebook isticmaalo oo caan ka ah ayaa waxa ay noqotay mid aaminta muuqaaladeeda ay u diri jirtay, waxa uusan noqday mid qiyaamay isagoo xalayta soo dhigay muuqaalkaasi. Haddaba waa kuma wiilkaasi, sawiradiisa iyo weliba muuqaal dhammaystiran ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkeena xiga. balse like inoo saar oo subscribe dhaho si aad ula socoto muuqaalka.